gudoomiyaha golaha deegaanka ee Buuhoodle Cabdifanax Cali Cawil oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Buuhoodle ayaa si adag u cambaarayay hadalka soo yeedhay xalayto wasiirka amniga ee maamulka Khaatumo Kayse Cabdi Yuusuf isagoo Kayse Cabdi Yuusuf uu sheegay in ciidamo Khaatumo iyo ciidamo Soomaaliland isku dhafa ay weerari doonaan magaalada Buuhoodle haddii lagu qabto shirka ku baaqan ismada gobolada Soomaaliya Cayn ee dhawaan la filayo inay soo gaaraan deegaanka Buuhoodle gudoomiyaha golaha deegaanka waxa uu sheegay oo ku amray madaxda Khaatumo in arrinta ay raali gelin ka bixiyaan sidoo kale waxa uu isagu sheegay in aanay ugu dambeynay cid dambe arrimaha ammaanka iyo waliba xaaladda gobolka Cayn waana kan isagu arrimaha ka hadlaya marka hore qodobka koowaad waxaan halkan baa ugu diray dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Khayre iyo ra'iisul baarlamaanka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaan halkan baa ugu diraya waxa weeye dadka reer Khaatumo muddo aad u dheer waxay ku dhimanayeen calanka Soomaaliyeed waxaa la yidhi gabadha aad u qurux badnayd oo berigii dambe ayay gabowday markii ay gabowday waxay aragtay odaygii oo desanka ka taagay waxay tiri ilaa reerka xaqayga naga sii dowladda Soomaaliyeed alla xaqayga naga sii ummadda reer Khaatumo muddo dheer ay calanka Soomaaliyeed usoo dhimaysay waa mar kastaba weeraradahay xaqeedii weeraradahay waxaan ka doonaynaa dowladda Soomaaliya xaqii ummadda lahayd hadday difaac tahay iyo hadday waxtar tahay iyo hadday horumar tahayba waa uga fadhinaa si degdeg ah ayaan uga fadhinaa taasaan kaga baxayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay waa inay indhaha ku soo jeediyaan ummadda reer Khaatumo ee calanka huwan ee lagu weynayo ee 24 saac lagu wajahayo taasaan kaga baxayaa